waa live trading keeni maanta 21 August oo khamiisa sida aragtaan gold buy baa ugu jirnaa waa trade keeni labaad trade-kii hore la soo qaadanay 22 biiba oo suuqu markaas dhaqaaq fiican ma sameeyeen eriyadan ahayd marka waxa weeye iminka waliba markii stop-loss-ka saana looga saaray TB directly loo aaday hadda insha Allah waxa weeye waa London lunch time-kii weeye oo wali ma furmineen way session dabcan waxaana soo baxaya unemployment claims-kii sida waxa weeye mataqaan xagana ka arkaysaan marka haddeeraaba waxa weeye dhaqaaq fiican runtii u jira DXY sida arkaysaan waxaan expect garanayaa insha Allah gaabkan si fiican loogu soo sargareeyo 30 minutes sida aragtaan ama ay ugu soo daadato so gold insha Allah buy baa u raadinaynaa biidhnillah trade-kana waa 53 biib salka waa 20 biib sida aragtaan marka waxaan rajaynayaa insha Allah trade-kan inaan full target qaadan doono biidhnillah let us go alxamdulillah hadda sida aragtaan suuqa TB1 buu nasiiyay ama targetkii koowaad almost 20 biiba marka aynu aragno insha Allah wiiraan suuqa gaabka uu tagi kara oo TB2 gana so alxamdulillah sida aan sheegay suuqa waxa weeye dhaqaaqi fiican oo noo sameeyay iminka 28 biib wada almost TB2 gana insha Allah waxa weeyaan 37 ilaa 36 biib hadii insha Allah nasiiyo waa break fan garanayna trade-ka okay alxamdulillah sida arkaysaan suuqa iminkana TB2 buu nasiiyay almost saa ujeedin hit TB2 37 biibis ilaa maalis kale you can see so hadda break fan baa ku tuurana insha Allah trade-ka waana isla arki doonaa biidhnillah so candle-kan sida aragtaan gaabka rejection ka soo sameeyay guduhu ku xirmay marka next candle furmay iminka week buu sameeyay insha Allah waxa ka rajaynaynaa inuu si nadiif ah u dhaqaaqo wuxuuna ka qurux badan yahay xagga 5 minutes ka hadii fiirisaan 15 baa trade kaga jirnay gaab baa la samaystay so gaabka la soo buuxiyay hadda waxa ka rajaynaynaa insha Allah dhaqaaq fiican iyo in markaasi uu target-kan u fuulo una siiyo markaynu isla aragna insha Allah so alxamdulillah waa ujeedaan inta ay sheegay gaabkii waa la yimaaday kadibna candle-ka dhaqaaqaad qurux badan oo noo sameeyay hadda mar kale dib wuxuu ugu laabtay TB2-gii almost sida arkaysaan Allahu musta'aan 43 biib wada so candle-kan insha Allah wuu na gaarsiinayaa sida rajaynay biidhnillah TB-gana oo full target-ka markaan isla aragna insha Allah so very nice alxamdulillah can see now 48 biibs okay only insha Allah waxa inoo dhiman oo arkaysaan alxamdulillah 48 biibs okay let us go alxamdulillah so candle-kan 5 kaas ayaan sheegay insha Allah isaga ka rajaynay inuu TB-gan oo nasiyo runtii because of gaabkan uu yimaado weeye kaliya so good runtii si fiican buu dhaqaaqay alxamdulillah hit TB see okay naga saar good